magacaygu waa Cabdikariin Cali haddaan u soo laabtay su'aashaada ah waxaan leeyahay aniga si weyn waxaan u doorbidayaa inay gabar igu matasho sababteedana waxa weeye waqti badan aan baarlamaanka Soomaaliya ku soo tijaabinay rag markaan waxaan dhihi lahaa waxaan bal ogaaleyn haweenka ayagana doorkooda ayadoo loo yahay wadanka waxyaabo badan ka soo qabteen intii wadanka burbursanay dadka soo badbaadiyeen aniga hadda kula hadlayaa waxa laga yaabaa inaan gabar wax soo bartay hooyo wax soo bartay oo aabe uusan soo qaban dad kale oo ilmaha ay la jiraan marka waxaan leeyahay bal markaa waa doorkoodii aan ku tijaabino insha Allah طبعا waa dareemi kartaa marka xilal culus ama bulsho loo adeegayo waa hawl aad u adag ragana kaga haboon ayaan fidii karaa dumarka waayo dumarka in badan howlaha waaweyn ama ka culus anigu igulama haboona in loo dhiibo sida xildhibaan ama maaragtay maxaa xilal culus rag ayaa kaga firfircoonaa fidii karaa magacaygu waa Cabdullaahi Ali Xasan waxaan jeclahay in ay u matasho qof dumar ah sababta yani aan u sheegay waxay tahay qofka dumarta ah way ka nugushahay waa ka maxallaha naxariis wanaagsan tahay qofka ragga dabcan waxyaabo fara badan dadkii soo doortay ehelkeedii maxallaha dadkii qaraabadeed dadku matalay waa u damqaysa dabcan xanuunkaas ma xamil karto laakiin ninka ragga waa nin adag waxaas waxa laga yaabaa inuu iska dabaaliyo in yani danihiisa gaarka oo ka raacdo marka sidaas daradeeda ku doorbida in yani qof dumar ay u matasho golaha shacabka ama aqalka sare aniga labadaasba in la kala qaado ma qabo kaliya waxaan qabaa qofka tayada iyo muxuu ahaa u leh inuu hawshaas qabto oo muxuu ahaa markii waxa la dooranayo shacabka ay doortaan halka tayo bis laga eego